bismillaahi araxmaani iraxiim kusoo dhowaada janalka maalmaha waxaan idinla wadaageynaa qiso aada u xiiso badan. qisadan ayaa waxay ku saabsan tahay qiimaha ay leedahay in la ilaaliyo ammaanada. qisadan ayaa waxay dhex martay wiil dhallinyaro ah iyo nin sheekha oo waayeel ah. wiilkan ayaa wuxuu u soo safray dalka Sacuudiga isaga oo doonaya inuu soo guto xaj. isaga oo jooga xaramka ayuu wuxuu helay kiis ay ku jirto katiinad diamond ah. wuxuu isku dayay inuu xafido isla markaana uu raadiyo ruuxii iska lahaa. isagoo gacanta ku hayo ayuu wuxuu arkay oday waayeel ah oo dhahaya waxa iga maqan kiis ay ku jirto katiinad diamond ah. wiilkii wuxuu u yiri odagii, kadibna wuxuu weydiiyey baadida ka maqan sida ay u taalo. odagii ayaa wuxuu tilmaamay baadida ka maqan sida ay u taalo, kadibna waxay noqotay midii uu wiilka gacanta ku hayay. sida ayuu wiilkii ugu wareejiyey baadidii odagii oona uu ka soo tagay. markii uu soo dhammaystay xajkiisii ayuu wuxuu u soo safray dhanka baytulmaqdis. muddo dheer kadib ayuu wuxuu safar u soo aaday dalka Suuriya. markii uu galay magaalada Xalab ayuu wuxuu iska degay masjid halkaa ku yaalo isagoo ay ka muuqato duruuf iyo gaajo adag. isaga oo meel iska fadhiyo ayaa waxa u yimideen jamaacadii masjidka, waxayna ku yiraahdeen waxaan kaa doonaynaa inaad imaam noo noqoto maxaa yeelay waxaa dhintay imaamkii masjidka. sidii ayuu wiilkii salaadii u dusiyey. markii uu ka baxay salaada ayaa dadkii wareyseen xaalkiisa. wuxuu ku yiri waxaan ahay ruux musaafir ah. waxay ku yiraahdeen maxaad ka qabtaa haddii aad nala joogto imaamna aad noo noqoto? wuxuu yiri waxba kama qabo. sida ayuu wiilkii masjidka imaam ugu noqday. muddo yar kadib ayay wixii dadkii ku yiraahdeen waxaan rabnaa inaan gabar ku guurino oo uu dhalay shiiqii dhimanayay oo imaamka ahaa. wuxuu yiri waan ogolahay. sida ayaa lagu guuriyey gabadhii. markii guriga loo keenay gabadhii ayuu wuxuu ku arkay katiinadii uu xajka ka helayay oo odagii waayeelka lahaa. kadib wuxuu ku yiri gabadhii, xageed ka keentay katiinadan? waxay ku tiri aniga ayaa iska leh, aabbahay ayaa i siiyey. kadib wuxuu ogaaday aabbaheed inuu ahaa odagii uu kula kulmay xajka. wuxuu uga sheekeeyey gabadhii qisadii dhex martay isaga iyo aabbaheed. gabadhii ayaa waxay ku tiri aabbahay ayaa iga sheekeeyey qisadaada, wuxuuna mar waliba alla ka bari jiray in aan nasiib u yeesho wiil adiga oo kale ah. hase ahaatee aabbahay ma uusan ogeyn inaad adiga calaf ku yeelan doono. qisadan waxa aynu ka faa'iideynaa qiimaha ay leedahay ammaanada. haddii aad ka dhoorsato xumaanta, alla wuxuu kuu karaameynayaa adduun iyo aakhiro. waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. haddii aad ku cusub tahay janalka maalmaha, fadlan sabskaraab dheh, gamaleelkan riix si ay kuu soo gaaraan waxyaabaha cusub aan soo dhigi doono. mahadsanid.